ومركو إلى جوبي أنا بيسني That's you? That is me. أنا ما قاتل أنا قو خلنا يكيف فايدستين والله way oysa gabadha way ooysa gabadh yarta ooysa ehel male أمير أنا قاعد يا أمير مسكين It's sad because my mom, she's a really good mother and she cares. She really cares. It's just not fair. It's really not fair. Like I don't know what to say because if I'm being honest, like I was really, really young. I didn't really know too much. There was nothing I could do, and you guys might be confused, but they literally used my mom not knowing English as an advantage. Like that's just, they wouldn't bring any interpreter for her. They didn't do anything. They just made it a quick process, got him at the house, and now they got him immediately adopted and made it so that we can't do anything. They failed a home study for my mom and said that she can't adopt any more kids or like have Amir back to us as a family relative. They said my mom associates with the wrong kind of people. They said that she is not a good, like a grandmother. She can't be fully stable for him. And I really just don't know what to say. Like I don't want to say that I don't care because I do care. It's just, it's not fair anymore. We really don't know what to do. إن شاء الله هذا خير كل بشارة صادر إن شاء الله إن شاء الله في كالا أبتي don't worry don't be sad we are with Allah is with us they are coming back إن شاء الله they are coming back Somalia هو يلا أفر سنة أي عرورة الله يستا can you bring it closer maanta waa ka walaalkaa ku hilinaya ku yimiday ma garateen markaa de raasiyaadhal dabca safarinta ha gaarsiiyo raasiyaadhal waxaan leeyahay walaasheen way nii baahan tahay soo garab istaaga ayaan leeyahay maanta adduunyadu waxa weeye waa niga arkaya kiyo shalay joogay maxaa heeday alaska maanta halkan jooga marka please raasiyaadhal inagoo isku duuban oo qabiil eegin oo waxba eegin ha loo sarakaco hana la caawiyo intaasaan and cash abkeedu wakaas S Jama 2213 S Jama Jama 2213 S Jama 2213 kulligiin soo qora Facebook kuwa ka daawanaya soo qora walaalayaal S Jama 2213 S Jama 2213 Mama Shamso numberka sheeg numberkaaga ku cel maanta gabadhaasi waxay taagan tahay talaay Soomaaliyeed waxa haysta ubadka inamada quruxda badan waxa haysta dad cadaana waxay taagan tahay talaay Soomaaliyeed tiyo waan naqlayna qabiil loo eegay dad casar baa halka ka sheegay Soomaalida siiba siyaadal walaalayaal waxaan leeyahay inagoo isku duuban aan dadkaas sheegay ubadka loo geeyay aan ka soo dhicino oo loo yar qabino oo Soomaalinimo aan isku istaagno ناس مشاغلنا ضرب سقنا وانا نيغا بحيا خير الله كسيو دبع سرو هداتي ما ديد maxaa heeday meelaha maqaayadaha Soomaalida maalka Soomaaliyeed بريتا la dhurka noogu qaalay oo dadkana la hadal insha Allah waa idin keenaya Mama Shamsan idin keenaya oo mooralka idin ku keenaya oo gabdhaha u keenaya oo hayay Soomaaliya ayadan idin keenaya ayadii xaajiya Shamsa waa kuwana wixii kaalma wixii lacaga ayaga farta ka saaraysaan mooralkan idin ku keenaya meel walba idin ku keenaya masaajidadan idin ku keenaya waa kuwana insha Allah taala ayaga سلامنا الريحان والله بقردي واتين نولو نكي يقولنا حيا يقولنا الريحان واقب نبضي والله هاي السلام عليك خير الله كسي والله ليال Soomaaliya oo dhan baa gob ah kulligiin gob baa tihiin guulaysta Soomaaliya oo dhan kulligiin baa gob ah Soomaaliya oo dhan baa gob ah kulligiin baa gob ah isu naxariisana gabadhaas waxa ka hadal sicaawa waa naxariis waa walaalnimo waa islaamnimo waa qiiro waa qiiro fadlan waa kuwaasa
walaalayaal ugu soo dira waxaad awoodaan wakaas Britain Seattle masaajidyada ka xishoon mayna masaajidyadeenni culimadu waa culimadeenni masjid Abu Bakar masaajidyada kale wa idinka mas'uulka dadka kan idinka Ilaahay maalinta qiyaama idin weydiinaya meel kasto aad ka joogtaan caalamka culimada Soomaaliyeed maartay 240 milyan ba hadda loo haystaa Minnesota culimadii dadka lacagta loo haysto waxa lacagta caruurta 240 milyan waxa u badan masaajidyo waxaan dadka inay caruurahan siiyaan Soomaa hooyooyinkan masaakiinta inay siiyaan Soomaa ya maalinta qiyaame ya صح يا والله بالله Soomaali Ilaahay dhexda u shaagu qabto aamin Soomaali Ilaahay u shadhexda noogu qabto Allah Soomaali oo dhan waa ku gurmanaysa waana idin gurmanayaan caruurtii baan mar labaad ku qabanaya si ay u arkaan qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo walaalayaal kan ku daaray waa buu walaalayaal Soomaaliyay barakallahu fiikum haya adar keep adar So your sister her husband is that's my sister. And back in 2017 I was really young. I didn't know a lot, I'm not gonna lie. But I noticed that my sister was really under the influence of her husband and was being like harassed and just walaashay ninkeeda ayaa drug dealer ama darogada isticmaali jiray ayadiina waa baray and basically my mom didn't know English and they used that to their advantage and they hooyada ingiriiska ma aqoon taasana laga faa'iideystay they knew that my mom couldn't speak English and the process was happening really quick. They said that Amir, which was the oldest boy in the video, they saw that he couldn't stay with my mom because my sister, when my mom was in the hospital with how they took the first one. This is the first how what's the cause? The cause for this was why was she influenced of drugs? My mom she was having surgery and so no before why they suspected the mother of the children. She wasn't stable to be a mother. hooyadu caadi ma ahayn ilmaha dhashay waa gabadha yarta ee ilmaha dhashay magaceed gabadhaadu She got Saudi ayo Saudi Maxamed Shire Saudi Maxamed Shire yes oo reer dalala yes ayay ka tahay oo reer warsamo dalala ku celi Saudi Maxamed Shire waa gabadhaada oo gabar Marixaana oo reer dalala oo reer warsamo dalala beesha Marixaan oo magaalada joogta 4 sano ilmaha la haysto joogto ma la xiriirta adigu wallahi waa naga warqabaan culimada ma la xiriirta waa tagay masaajidka tagay hal mar waxaan u tagay markii koodii hore wiilkaba oo la iga qaatay waxaan u tagay mahad Sheekh Mahad al-Ayri asagoo dada asagana markaas waa boobsiis oo ahaa laakiin naagtii oo social worker ahayd oo igu taagneed markaas oo dhunta ii gashay ayuu message u reebay maalinka dambaan ku noqday meel ku soo celinin haddana gabadha yarta markay isbitaalka uga tagtay anaa saas u haayo babyga yarka saas anaa u haayo markay Saudi baxday aan oo guriga inta imidano iska ooynay baadana waxa wacay sheekh Allah qeyrsi Sheekh Ahmed Nuur imaamka Dr. Ahmed Nuur bay dhahay waxaan rabay inuu wiilkaan iyo hamar la hadlo oo maartay yiraahdo almiino asagoo nin Sheekh Ahmed Nuur ma u tagtayo lacagtaan la daldalayo looyar ii qabo ma tiri ma u tagin waa wacay been sheegay ma wacday dib bay haysta ma tiri dibkaas haysta ilma la yaqaatay ma tiri waa u sheegay haye dibkaan aan haysta waa kana gabadha istaan wixii dhan waa sheegay adiga haye qaadaduna waa ogtahay Seattle kabar way ogaayeen laakiin waxa waaye ilmaha dad badan waxa jira ii qaadi lahaa maxkamadda marka aaday qof kasta waxa la leeyahay ninkan ka leexda raxmarka ay wadidilin wiilkan raxmarka ay wadidilin ka leexda dadkii wax kala hoos laga sheegaya marka waxaas in la iska dhaafaa fiican anaga lama yaqaan gabadheeda lama yaqaan dadku sharciga ma yaqaanaan wallahi billahi dadku sharciga ma yaqaanaan xuquuqdooda ma difaacdaan dad badan oo ii soo baxay wallahi na been sheegeen ayaa waxa la leeyahay ilmaha ka leexda adoptionku ma aha in hooyadu hadaynan saxiixin adoption ma noqon karo ma ogtahay cannot mar hadii la adopt karo how they gonna adopt waxa hooyadii may saxiixin waa foster home say that they refuse no they refuse to let
the little boys see their sister. foster home waay They foster home ay refuse joogaan to let the Waa foster little home boy inaad see his iminka sister. soomaaliya gurmada u gurmada marka waxaa waaye soomaaliya walaalow saasay ahayd ma jirto okay masaajidka tag maanta igu dhacday masaajidka mata 4 sano koor masaajidka lacagta laga dalbalay seebada u tagin xaajiyo waa tegey haye ma wacday ma u tagtay waa tegey ma hada u tegey haye ayaantii ugu horeysay haye marka insha Allah naagtii social worker uu must u reebay may soo jawaabin because ma rabto inay soo jawaabto oo aniga iladi ugu aheedo haye loo yar ii qabta maxaa u dhaweyd ma dhihin taas walaalo waxaan aniga maxkamadda taagnaa oo waxaas oranay waa lagu siin doonaa ilmahaaga waxbana ma aqoonin say gabadheedu sheegto waa runteeda maxba ma ka saynin war ilaahay yaa yaqaan oo ummadda rasuulka ah maba qaadanaya ila weliga ilmo leega war hadda fiiri masaajidkan abubakar waxa la qariyo qurun baa ku jira walaalo fiir day 4 milyan oo dollar bay qaateen oo ku qaateen cudurkan ogaad horta 4 milyan oo dollar bay qaateen cudurkaas yarka day okay We didn't go play basketball today. Why is our camera up? oh adiga turtay No, but why are we? We cilni. Tablet to prop the other tablet up. Hey, Nino. What's your favorite part of the day? You pooped in your pants. That was your favorite part. That's not your favorite part. My favorite part is Show them this. ii qabaya qasasi uu qabaya This one just. ii qabaya This was let me see. This was June 9th, 2017. When I was younger. waa markuu ila joogay anaga haysanay that's you That is it. inama qaateen anigoo qalan ay kaga faa'iideysteen way ooyeysaa waa gabadha way ooyeysa gabadh yarta ooyeysa ehel male It's sad because my mom, she's a really good mother. She cares. She really Okay. cares. It's just not fair. It's really not fair. Like I don't know what to say because if I'm being honest, like I was really, really young. I didn't really know too much. There was nothing I could do, and you guys might be confused, but they literally used my mom not knowing English as an advantage. Like that's just, they wouldn't bring any interpreter for her. They didn't do anything. They just made it a quick process, got him at the house, and now they got him immediately adopted and made it so that we can't do anything. They failed a home study for my mom and said that she can't adopt any more kids or like have Amir back to us as a family relative. They said my mom associates with the wrong kind of people. They said that she is not a good, like a grandmother. She can't be fully stable for him. And I really just don't know what to say. Like I don't want to say that I don't care because I do care. It's just, it's not fair anymore. keerka ku qabso We really don't know what to do. igada xoog ii sheegatay kayla xoog ii sheegatay kayla insha Allah adeer khayr ku bishaaraysa adeer insha Allah في كala abti don't worry don't be sad we are with Allah is with us they are coming back inshallah they're coming back